waxaan ka hadlaynaa haddii ilaa waxa lagu magacaabo renal angiotensin aldosterone system ama waxa lagu magacaabo juxtaglomerular apparatus waxa lagu magacaabo ayaan ka hadli doonaa ama si kale haddaan u dhigno waa sida kelidu ay u manage gareyso dhiigga kelidu inay dhiigga cadaadiskiisa ay kor u qaado ama ay manage karayso waxay ku xiran tahay afartaas shay oo kala ah renal blood flow imaanaya kelida dhiigga imaanaya blood flow renal blood flow imaanaya inuu yar yahay kelida dhiigga imaanaya inuu yar yahay ama sidoo kale inay uu yar yahay extracellular fluid inuu yar yahay ama sidoo kale inay yar tahay inuu yar yahay dhiigga imaanaya ama sodiumta imaanaysa sodiumka imaanaya meesha lagu magacaabo macula densa oo mar walba meeshar garaysa sodiumka macula densa oo qaybta ah distal part of convoluted tubeska lamina densaha macula densaha in macnaha sodium fara badan ama sodiumta loo baahnaa ee imaan weyso oo wax yar oo sodium imaado iyo sidoo kale in uu kaco sympathetic activity oo jirka sympathetic activity jirka inuu bato afarta shay ku xirtay blood flow-ga ee kelida imaanaya renal blood flow inuu yaraado oo hoos u dhaco ama extracellular fluid inuu yaraado ama sodiumka macula densaha imaan lahayd inay hoos u dhacdo ama inuu kor u kaco sympathetic activity oo jirka macnaha oo jirka xaalad taxsanana oo la kulmo tan waxaa keeni karta qofku inuu dhaawacmo oo dhiig ka baxo blood flow-gi sidaas uu ku yaraado ama tan heat-ka oo kale qofku inuu biyo isticmaalin fuuq baxo extracellular fluid yaraado sodiumta jirka inay yaraato oo kale oo qofka hawaaye yaraado ama sympathetic activity qofka inuu galo oo dagaal ama macnaha xaalad kacsanana qofka inuu galo sidana loo baahdo dhiig fara badan oo jirka lagu maintain gareeyo afarta shay uu baahan yahay juxtaglomerular apparatus ama dhiigga kelida inay maamusho hadda waxaan arki doonaa qaabka ay u maamusho kelida dhiigga tani waxa waaye waa afferent arterioles kanna waxa waaye Bowman's capsule waaye tusaale ahaan waxaan hadda sawiranay filtration rate meesha ku dhici lahay ama waxa waaye glomerular filtration rate ama nephron ayaan sawiranay dhiiggu wuxuu ka imaadaa jirka markuu ka imaado oo wadnuhu soo bandhigarayso usoo socdo kelidu waxay heshaa boqolkiiba 26 ayaa cardiac output ka heshaa kelidu boqolkiiba 26 dhiigga wadnuhu soo saaro boqolkiiba 26 ayay heshaa oo u dhiganta 1.300 milliliter ayay heshaa waa organka labaad ee hela boqolkiiba 30 waxaa hela beerka boqolkiiba 30 cardiac output-ka waxaa hela beerka dan marka kelidu markii dhiigga uu imaado waxaa ku yaala meeshaan smooth muscle specialized smooth muscle ayaa ku yaala afferent arterioles waxaa lagu juxtaglomerular afferent arterioleska waxaa ku yaala waxaan ku leeyahay smooth muscle specialized smooth muscle ayaa ku yaala oo lagu magacaabo sidoo kale waxa lagu magacaabaa polar cation ayaa lagu magacaabaa polar cation ama balkisanna waa lagu magacaabaa ayaa ku yaala kuwaas oo maamulo ama la socda xaddiga dhiigga imaanaya kelida ayay la socdaan polar cation ama balkisaniskaasi la socdaan sidoo kale qaybtan hoose waxa ku proximal convoluted-ka waxaa ku yaala macula densa ayaa ku yaala macula densahani dan qorano macula densadan waxay iyaduna maamushaa qaybtan sodiumka ama cusbada soo gaarta ayay maamushaa oo la socotaa xaddiga dhiigga iyo sodiumka soo gala ayay la socdaa waxaa labadooda isku xira labadan way isku xiran yihiin labada dhinac ayaa waxaa isku xira ilaa halkan taga wax
waxaa lagu magacaabaa extra glomerular mesangial cell extra glomerular mesangial cells waxa la yiraahdaa isku xira dan marka waxaa yaraanaya blood flow markuu yiraahdo afartii qayb soo sheegnay mid kamid ah oo dhaco blood flow oo yiraahdo waxaa la soo deeyay meeshaan waxay soo deeysaa waxay soo deyn doontaa dhiigga soo raaci doontaa waxay maamushaa waa smooth muscle-ka polar cashika waxay soo deey doontaa renin ayay soo deey doontaa reninka wuxuu raaci doonaa dhiigga halkaan ku gudbi doonaa wuxuu tagi doonaa systemically blood ayuu tagi doonaa uu gudbi doonaa taas waxaa lagu soo deynaa marka waa marka blood flow yiraahdo mararka qaar waxa waaye filtration dhacaya filtration markuu halkaan ka dhaco filtration markuu dhaco oo halkaan kaadii la saari lahayd sodiumka tan maamusha marka kula dansa sodiumka maamusha sodiumka inta imaan lahayd wuu yaraanaya dan waxa waaye response ayuu u diraysaa kula dansa smooth muscle-kan oo polar cashika ama Parkinsonka waxay leedahay sodiumka imaan lahayd wuu yaraaday waxaa samaysaa renin day si absorption loo sameeyo ama macnaha si loo maintain gareeyo oo u imaado sodium fara badan meeshaan dan renin wuu baxayaa renin wuu baxayaa renin wuxuu tagi doonaa beerka ayaa wuxuu soo deeyaa renin uu bixi doonaa dhiigga ayaa beerka wuxuu ku soo deeyaa angiotensinogen haddaan qorno angiotensinogen ayuu soo deeyaa beerka dan marka reninkii waxay la falgeli doontaa angiotensinogen waxay u bedeli doontaa angiotensin 1 ay u bedeli doontaa dan angiotensin 1 wuu bixi doonaa wuxuu la falgeli doonaa langiska ayaa endothelial ama langiska ayaa wuxuu soo deey doonaa angiotensin converted enzyme ayuu soo deey doonaa angiotensin 1 ayuu wuxuu bedeli doonaa angiotensin 2 ayuu u bedeli doonaa angiotensin 1 haddaan kusoo celino renin ayaa la soo deey doonaa renin dhiigga ay raaci doontaa beerka si caadi wuxuu soo saaraa angiotensinogen dhiigga ayuu ku jiraa renin waxay la falgeli doontaa angiotensinogen waxay u bedeli doontaa angiotensin 1 dan angiotensin 1 wuxuu la falgeli doonaa angiotensin converted enzyme oo laga soo daayo langiska ayuu la falgeli doonaa wuxuu loo bedeli doonaa angiotensin 2 wuxuu samayn doonaa marka angiotensin 2 wuu bixi doonaa wuxuu samayn doonaa isaga aldosterone secretion ama aldosterone secretion iyo vasoconstriction labada shaqo ayaa ugu muhiimsan sidoo kale wuxuu samayn doonaa oo kale ADH secretion uu samayn doonaa dan marka wuxuu tegi doonaa venous return-ka vein-ku tegi doonaa markii oo la soo daayo angiotensin converted enzyme wuxuu tegi doonaa smooth muscle of the vessels ku tegi doonaa wuxuu kordhi doonaa venous return-ku kordhi doonaa venous return markuu kordhiyo cardiac feeling oo badan doona cardiac feeling markuu bato cardiac output ku badan doona cardiac output markuu batana systolic blood pressure ka kordhi doona tan waxa waa maintenance jirka ayaa lagu caawin doonaa dhiigga inta loo baahnay in lagu maintain gareeyo sidoo kale wuu bixi doonaa angiotensin 2 wuu bixi doonaa wuxuu soo deey doonaa aldosterone wuxuu tegi doonaa zona glomerulosa of adrenal cortex wuxuu tegi doonaa zona glomerulosa of adrenal cortex wuxuu soo deey doonaa aldosterone wuxuu tegi doonaa sodium potassium ATPase uu tegi doonaa kadib waxa waaye wuxuu absorption lagu sameyn doonaa sodiumki waxaana excretion lagu sameyn doonaa potassiumka oo kaadi raaci doona ama sodiumka ayaa absorption sodiumka marka mar walba waxaa soo raaci doona water ayaa soo raaci doona waterkaa soo raaci doona sidoo kale wuxuu sameyn doonaa wuxuu tegi doonaa posterior pituitary gland wuxuu soo deyi doonaa ADH-ka wuxuu ka falgeli doonaa collecting ductiska
qaybtan dambe ee collecting ductska wuxuu sameyn doonaa aqua boring waxa la dhaho aqua boring ayuu tagi doonaa oo reabsorption of water ayuu halkan ka sameyn doonaa sidaasna wuxuu qofku ku heli doonaa oo kusoo saari doonaa concentrated urine kaadi xad oo biyo badan aan lahayn oo aad u yar oo khafiif ayuu qofku soo sameyn doonaa tani waa shaqada guud oo kelida qaabka ay u maamusho waxaa jirta marka dawo la siiyo dadka oo lagu magacaabo angiotensin converted enzyme inhibitors dawadaas waxay joojin doontaa angiotensin converted enzyme langiska laga soo deyni doono inuu angiotensin 1 u bedelo angiotensin 2 si ay shaqadan u qabato haddaan kusoo celino waxaan dhahnay polar cashinka waxay soo deydaysaa smooth muscle specialized measurement ku samaysa ama cabiraad ku samaysa marka blood flow kelida imaanaya waxay soo deedi doontaa markuu yiraahdo dhiigga renin waxay tegi doontaa liverka angiotensinogene laga soo deeyay ay tegi doontaa kadib waxa waaye waxaa loo bedeli doonaa angiotensin 1 angiotensin converted enzyme oo langiska laga soo daaya ayaa angiotensin 2 u bedeli doona kadib shaqadan ayuu qaban doonaa vasoconstriction uu sameyn doonaa vasoconstriction markuu sameeyo venous-ka badan doona cardiac feeling-ka badan doona cardiac output-ka badan doona systolic blood pressure-ka sii badan doona sidoo kale secretion aldosterone uu sameyn doonaa aldosterone wuxuu tegi doonaa meelahan oo ay ku taalo sodium potassium ATPase marka reabsorption ayaa waxaa la sameyn doonaa sodium-ka iyo reabsorption lagu sameyn doonaa dan waxa waaye wuxuu tegi doonaa ADH wuxuu kusoo dii doonaa posterior pituitary gland kadib reabsorption ayay ku sameyn doontaa biyaha qaybta ugu dambeysa ee convoluted tubeska kadibna concentrated urine ayuu qofku soo sameyn doonaa shaqada guud ee uu qabto qabato kelida wax lagu magacaabo renin aldosterone angiotensin system ama juxtaglomerular apparatus